بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa wadani TV iyo barnaamij aad u qiimo badan oo haddii aad ka faa'iideysanaysaan idin anfaci doono xilliga ay shacabka iyo carruurta gacanta u soo gasho awoodda maanta lagu kortumanayo ee xaqoodiina ilaahay u soo dhiciyo sida aysan ugu fakan lahayn iyadoo ay ku soo aadan tahay xilligii haweenka iyo carruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee inta badan kuwan qayr mas'uuliyiinta ay ku kortumanayeen dhibaatada badan ay u geysteen ee hadda ku soo fooloodahay barnaamijkan oo ugu magac daray fariinta shacabka haddaan nahay bahda wadani tv.com daawasho wacan oo wanaagsan. dadka iyagoo isku duubniba qaran lagu helaa isku duubniba awood lagu fuliyaa kala faraaruqa iyo dhibaatada heesta ay turjumayso ayaan barnaamijka hordhaca inoo yaqay waa baaqa shacabka Soomaaliyeed haddii maanta ay ka faa'iideysan weydaan oo ay idin dhaafto baaqana waad ka shaqaynaysaan. annaga wadani TV waxaan ka hadalnaa inta badan sano kasta oo soo socoto waxa Soomaaliya ku soo fool leh waxa joogana kama hadallo inta badanna waxa joogo waxaad aragtaan markii aan horay sanada ka horeysa idin soo sheegno indhaha ayaad ku dhufataan sida ayaa keentay inaan maanta baaq aan u jeedino shacabka dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka iyo carruurta duqeyda kuma jiraan waayo haddii aad ka faa'iideysan weydaanna waxay noqonaysaa mid khasaartaan ogsoonaada shacabkow dhibkii iyo khasaarihii iyo rafaadkii ilaa nini geysanayay iyo baabi'ii kuwan ka soo bilow 20 sano ee halaaga Soomaaliya ka socday ayaa maanta idin mara dhalay xaqiinina ilaahay ayaa keenay marka ay ammaanka golaha ammaanka la wareegaan Soomaaliya amnigeeda sanadan dhamaadkeeda waxaa nagu soo foolay doorasho xorriyad oo xor ah taana waxaa awoodda la wareegi doono carruurta dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed ee dambiga inta badan laga galay haddii marka ay iskhiyaantaan ama idinka waxa idin qabsanayso in ilaahay subxaanahu wa ta'ala halaag kale oo idin geliyo ilaahay ma ummadiisa ma maago mana dulmiyo iyagu unbaa isdulmiyo waxaan gacanteenu ku keensano ayuu inoo qabanayaa haddii cadaalad darra meesha ay ka baxdo waxaa dhacayso in haddana dulmkii ilaahay uuna geliyay iyo rafaadkii 20 sano qof kasta oo shacabka iyo carruurta ahna ha ka faa'iideystaano oo had raadsadano dad maanta wadaniyada qadiyada iyo dalka ay ku dheer tahay oo qabiilka ka fog taas ayaana ah mid lagaga bixi karo dhibaatada 20 sano ee soo haysatay tusaale haddii ay idin soo qaato xilligii Eritrea Ethiopia ka go'isay ayaa dadka shacabka badankiisa waxay ayinsanaayeen ama ay aaminsanaayeen in ay guri la midoobi karaan Ethiopia markii ay qaramada midoobay ay u ololeysay in laga qaadayo abti balaaran ayaa nin aad u aqli badan waxa uu sameeyay waxyaalo ay kuwii kale dhanka maqnaayeen iskii ayuu isu kharash gareeyay wuxuuna tagay Eritrea wuxuuna haweenka iyo carruurta ka dhadhacsiyay waxa ay xornimada tahay iyo xorriyada gacantan u soo galayso maantana iyaga ay ku xiran tahay hadduu ninka ahayn waxa dhici lahayd dadkaas oo dhan inay u foodayaan inay Ethiopia ka tirsadaan taasina ay ku dhumiso xaqoodii iyo madax bannaanidoodii sidaa awgeeto ayaa rabaa in shacabka iyo carruurta anigana aan ugu baaqo in xilligoodii la gaaray ay codka wax ku heli lahaayeen qaadaysa qofkooda dadkooda fiicanna ay ku dooran lahaayeen haddii laakiin naf ay ku gasho qalbi jaceylsi iyo qabiil iyo wax daran qabiil horumar laguma gaari karo qabiilku waa kan duleeyay ee baabi'iyay nala haray qabiil gul kaligiisna wax ma qabto adiga waxa kugu jirto danta guud oo ah qarannimada ayaana shakhsi ahaantaada nolosha ku haysa qof kale oo u ololeyso oo madax ka dhigto wax faa'iido oo ku haysa ma jiraan haddii qabiil rajo lagu gaari karo ama wax lagu qabsadana dalka ugu qabiil jecel adduunka waa Yaman halka ay martay dhibaatadii ay soo martay iyo halka ay ku sii biyo shubanaysa fiiri heerka ay gaadhay ninka ugaaska ah
ee yemeniiska ah iyo madaxweynaha isku si ayaa loo qadarinayay oo loo waardiinayay qof kastana qabiil baa wax lagu qaybsan jiray intay soo jirtay waayo wax yar bay soo jirteen maantana way burburtay wayna ogsoon yihiin haddii xataa dawlad aad ku dhistaan qabiil aad ku qaybsateen waxay noqonayaan kuwii horay aan ugu dayrinay ee gacanta iskula saaray sharci darrada baarlamaanka oo indhaha ku saarteen oo kuwan ah bal ila daawo khasaaraha kuwan ay sameeyeen waxaasoo kale ayaad soo xilinaysaan haddaba ogaada sharciga yaa ka baqayo sharciga dastuurka ee la sameynaya yaa ka baqaayo waxaa ka baqayo qofka loo keenay soomaalinimo ee halkaa la keenay ummadana ay soo dooratay wuxuuna ka baqayaa sharciga laakiin dad qabiil lagu keenay sharci kama baqayo oo wuxuu ogsoon yahay in qabiil lagu keenay birina qabiilka booska u cararo dhay hebel haddana hana noo geeyo qofka noocaasa markii meesha la keeno waxaa ka baxaysa cabsadii sharciga waxaana dhacaysa inay ka dhalato kuwa akhlaaq darro ah oo aan garanaynin xaquuqda baarlamaanka iyo waxa uu yahay iyo sharciga ilaalinta baarlamaanka oo noocan oo kale ah marna isfiiraan marna la kala qabto intay isku sii jeedaanna aan wax horumar ah dalka uusan gaarin sidaa awgeeto marna faa'iido ma laha qabiil lagu keenay baarlamaan oo lagu soo arooriyey waayo sharciga ayaa dalka ka baxayo sharciga markii qof walba soomaalinimo loo keeno wuxuu ka baqayaa in sharcigan hadduu qabta laga eriyayo booska qof kalena la keenayo sidaas ayuuna ku ilaasanayaa inuu sharciga dhowro laakiin qofka lagu keenay qabiilka ma aha mid uu u suurtagelayso inuu sharci ka baqo waxaana dhacayso akhlaaq darro iyo asluub darro aysan garanaynin xaquuqda iyo anshaxa baarlamaanka uu yahay baarlamaanku waa indhaha dawladda oo ah in ay ilaaliyaan sharcigana ay ku dhaqmaan tusaalena ay u noqdaan ama hormuud qof dadka ay matalayaan ma aha in maalin walba iyagii la kala qabto oo dagaalamaan haddaba mar kale yay nagu dhicin walaalayaasha qaadiga ohow oo soomaaliyeed haweenka iyo carruurta 2013 waxaa idinku sanaa ama 2013 doorasho xorriyad oo dhab ah oo dhammaantiin aad ka qayb qaadanaysaan ninka ayayna gacanta idinku jirtaa oo idiin soo gelaysaa kuwan dawladda ku sheega iyo qaqablayaashan iyo nooc kastoo noqdaana awoodda waxaa kala wareegayo golaha ammaanka oo hubka haysto ciddii ay soo doorato dadka ayay noqonayaan isku day qof walbow inaad ka taxadirto qof wax bartay oo maamul iyo wax walbaba ma aragtay wax ka garanayo shuruucda caalamka kaa markii la keeno meeshana sharciga ayaa hirgalayo sharciga haddii la taagana kala dambeynta iyo amniga uu imaanayaa laakiin haddii sharcigiiba laga awood badiyo oo uu ka badiyo qabyaalad waxay noqonaysaa shariif sakiin oo kale oo haddii khadka laga bixiyo xataa la dhaho ama ra-iisul wasaarayaashan mar walbaba aad moodo meesha iyaga inay ku dhasheen oo kursigaba loo qoray oo markuu ka baxa mid kale laleeyahay ree hebel ha la keeno taa ayaa imaanayso mar kale iyo dhicin sidaa daraaddeed waxaan mar kale ugu baaqaynaa shacabka haweenka iyo carruurta waxaad xaqiinni ha iska dulminina haddii kale ilaahay ayaa idin dulminayo haddii aad qalbiga ka keensataan dad jeclaysi waxaa loo baahan yahay maanta waa maalinkii dhibka laga bixi lahaa nin walbana uu u gurman lahaa waxaa loo baahan yahay dhallinyaradii taariikh